dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu daba joogaa shirkii xalata ay yeesheen 16 musharax ee ku aadana kulankii shalata ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada madaxweynaha dowladda ku meel gaarka isla markaasina looga hadlayay arrimaha soo magacaabista guddiga doorashooyinka madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu halkaas ku soo bandhigay waxyaabihii shalata musharaxiinta ay ka wada hadleen salaan kadib shalayto waxaan idin la socodsiinayaa inaan shalayto iyo daraad labadaba aad ugu mashquulay inaan musharaxiinta ama dadka u tartamaya madaxweynenimada doorashada imaan doonta ee Puntland inaan dhexdhexaadiyo si aan wax fidmaa iyo wax shidaahi oo imaan doorashada markii la gaaro haddaan dhageystay kulligood runtii waxa dhan ay sheegayaan waa wax shakiyaad ku dhisan dad baa ka dhex muuqda dadka tartamayaasha aan isku kalsoonayn waxyaabihii ay sheegteen oo igala hadleen oo yiraahdeen waxyaabaha haddaan wax laga qaban waxba hagaagi mayaan waa dhex galayo maamulka madaxda joogtana waa waraystay musharaxiintiina waa dhageystay ilaa labada dhinacba dhageysatidna dadka dee si aad u dhexdhexaadisay iyo si aad adigu go'aan u gaadhid ma taqaanin kulligood waxa ay ka cabanayeen way ii sheegeen waxay ka cabanayeen guddi la magacaabay guddiga ansixinta xildhibaanada madax dhaqameedka ee beeluhu ay soo hornayaan oo ay yiraahdeen waa dhinac waxay ka cabanayeen dhaqaalo wax la yiraahdo qaarkood waxay isku dayeen madaxweynaha Puntland hadduu musharax yahay ee istiqaalaha sii geeyo annaga nala mid noqdo si aanu awood u maaragtay wixii ku maamulo u yeelo aniga wax kale macnaale oo intaa ka baxsan iimay sheegin markaan runtii aad ugu mashquulay oo hadalkii aad loo jeexjeexay wixii aan ku dhexdhexaadiyay ee la isla aqbalay baan idin sheegayaa marka ninkii been sheega haddee wax kale u jeedaa wixii ceeboo meesha ka yimaadana isagaa leh ninkii tartan u socda oo adigu madaxnimo raadi un ay ka tahay ee aan dalkan fidmo ka sameeya arrintiisu ahayna wax lagu qanci karo oo lagu kala biskan karo oo runtii doorashadii lagu geli karaan ku dhexdhexaadiya anigu shalayto markaan akhriyay guddiga la soo magacaabay oo aan sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka eegnay guddiga inay magacaabaan waxaa xaq u leh madaxda Puntland ee musharaxiinta awoodu ma leh inay iyagu dadka magacaabaan waa qodob markaan eegay guddiga la soo magacaabay xubnihiisa oo ay yiraahdeen waxay qaraabo leeyihiin ama maaragtay dawladda u shaqeeyaan amba waa qaraabo dhow ee madaxda Puntland markaan fitishay shakhsiyaad badan anigu aan aqaan baa ku jira haatan in la isaga talagalo qofku xaqdarru samaynayaana aniga waxay la tahay inaan qumanayn anigu waxaan ku dhexdhexaadiyay guddigaasi soo un ansixinta xildhibaanada la soo magacaabi doona ma hawl kale leeyahay ma waajib kale leeyahay ma awood kala siiseen baa jira madaxweynuhu wuxuu yiri maya waxaan ku heshiisiyay musharaxiintii oo madaxweynuhu ku jiro in ninkii madax dhaqameedkiisii xildhibaan u soo qoran inaan guddigu diidi karin haddaanu dambiil ahayn
dembiile maxaa loo jeedaa haddaanu dembi horey u gelin culus oo dalka iyo dadka liddi ku ah madaxweyne yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal ay shalata musharaxiintu ay ka dhawaajiyeen oo ku aadanaa in uu xilka madaxtinimada uu iska casilo maadaama uu musharax uu yahay madaxweynaha iminka xilka haya jenaraal maxamuud muuse xirse cadde tan ah madaxweynaha hadduu tartamayo istiqaalaha geeyo war meesha dastuur baa yaala sharci baa yaala ninkan muduu leeyahay ya inagu ma tuqun karee sharcigaan raacaynaaye haatan waxba idin yeeli maayo waxba idinma yeeli karo ee iska daay waxaan kaloo idhi haddii shaki idinku jira weli waxaan idiin imanayaa doorashadii markii soo dhawaato haddii rabbi idin iminka waa tegayaaye waa idiin soo noqon doonaa 5 isim oo cadaalad lagu yaqaan guddi ha laga dhigo oo reer Puntland ana way iskala joogayaa jajuub haddii la isku dayo ama magaciisa la isku dayo ama xaqdara timaado ama waxaas yimaadaan annaga inoo taale guddiga uma taal shir saxaafadeedkan uu qabtay madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku aadanaa in uu cadeeyo markaas kulankii shalay ay wada yeesheen arinta ay ku aadan musharaxiinta ka cabanayay guddiga uu magacaabay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland jenaraal maxamuud muuse xirsi cadde ee loo magacaabay markaas guddiga khilaafaadka ee xukuumadda gaar ahaan dhinaca doorashada ayadoo madaxweynaha dawladda ku meel gaarka uu cadeeyay in arintaas shalata lagu heshiiyay isla markaasina musharaxiintu iyagu cabashooyin kala gedisan ay ka muujiyeen shirar jaraa'idna ay qabteen isagoo madaxweynaha dawladda ku meel gaarka uu sheegay in arintaas ay caddahay isla markaasina tahay mid si aadan loogu heshiiyay أحمد موسى علي أحمد شوكر تلفزيون عالمي ATN مقالة